بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوسف كداوانسان oo lix la media kaasoo aan kusoo bandhigno barnaamijyo si weyn u taabanaya nolosha iyo arrimaha bulshada haddaba daawada caawa waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenan maadaama oo inagu soo fooladahay doorashadii baarlamaanka iyo tii golaha deegaanka lacaawa waxaan isu istaagi doonaa baarlamaanka iyo shaqooyinka uu qabto innagoo qodobayn doona insha allahu tacaala daawasho wanaagsan haddaba daawadayaal ereyga parliament waa erey asal ahaan kasoo jeeda luuqadda faransiiska macnaheeduna yahay hadal ama dood taasoo waqtigan casriga loo isticmaalo sharci dejiye hadaba guud ahaan baarlamaanka ka jira dunidu waa iskaga dhow yihiin xagga shaqooyinka ay qabtaan guud ahaanna shaqada loo egmaday baarlamaanku waxa uu ka mid yahay saddexda waaxood ee loo qaybiyey hannaanka dowladda waxaana noqonayaa ka saddexaad marka laga tago labada qaybood oo ah fulin haddaba daawada markaad xulanayso xubin baarlamaan waxaad ogsoonaata xubintaasi inay tahay xubin qiimo weyn ugu fadhida shaqada iyo dhaqdhaqaaqa ka socda dalka haddaba shaqada uu baarlamaanku qabto waxaa lagu soo koobay shantan qaybood qaybta koowaad baarlamaanku waxa uu qabtaa kormeer iyo toosin shaqada ay xukuumaddu gacanta ku hayso iyagoo isu qaybinaya guddiyo iyaga dhexdoodu ayaa guddi kastaaba waxa uu qaabilsan yahay hawl iyo shaqo loo egbaday oo u gaar ah shaqada labaad ee uu qabto waxa weeye ansixinta barnaamijyada xukuumadda oo ay ku jirto miisaaniyadda dalku shaqada saddexaad ee uu qabto baarlamaanku samaynta sharciga iyo wax ka beddelka sharciyadaasi oo uu ka mid yahay dastuurka qaranku leeyahay sidoo kale baarlamaanku maadaama uu yahay golaha matala shacabka iyo deegaanada laga soo doortay xildhibaan kasta waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay dadkii iyo shacabkii uu matalayay ee deegaan doorashadiisa hadda daawada waxaan filayaa inuusan dah kaa saareen shaqada uu qabto baarlamaanku balse muhiimaddu waxay tahay shaqada baaxadda leh dadkii fulin lahaa ama hirgelin lahaa in uu yahay qofka soo dooranaya qof yaqaana shaqada qofka uu dooranayo kartidiisa iyo waxqabadkiisa daacadnimadiisa iyo inuu yahay qof aqoon u leh shaqada uu qabanayo muwaadin codkaaga mas-uuliyad ayaa kaa saaran waayo waxaad xulaysaa qofkii shaqooyinka qarankaagu u baahan yahay kala socodsiin laha taa macnaheedu maaha inaad codkaaga ku taageerto qof aan awood u lahayn inuu shaqada qabto tusaale ahaan hadda somalilan baarlamaanka fadhiya waxaa la doortay 2005 haatan laga joogo muddo 15 sannadood ah celcelis ahaan shaqada ay qabteen haddii qiimeyn gaara lagu sameeyo ma dhamma 5 sannadood taana sababteeda waxa leh codbixiyaashii soo doortay kuwaas oo aan u eegin ama laga yaabo inaysan fahamsanaynba macnaha doorasho macnaheedu maaha inaad shaqo geyso qof kula hayba balse doorasho macnaheedu waxa weeye inaad qarankaaga u xusho ciddii baahiyaha iyo waxa aad tabayso aad ku aamini lahayd inay ka saarto qaranka inaad u xusho qof ku matala danta iyo rabitaanka aad adigu leedahay horumariya deegaankaaga iyo dalkaaga fahansan shaqada loo igmaday garanaya waajibaadka saaran tusaale ahaan abubakar sadiiq ayaa waxa la weydiiyey weligaa ma jeclaatay inaad noqoto qof mas-uul ah ama hogaamiye ah wuxuu ku jawaabay weligay hal mar ayaa niyada geliyey inaan xil u qabto ummadda islaamka markaasi oo ahayd inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta waxaa la dooranayaa qof nebiga iyo ilaahayba raalli ka yihiin waanaad garan kartaa qof allihii abuurtay iyo nebigiisuba ay raalli ka yihiin maqaamka iyo darajada uu taagan yahay sababtoo ah abubakar waxa uu fahamsanaa macnaha ay mas-uuliyaddu leedahay qofka codka bixinaya waa mas-uul oo codkiisa ayuu mas-uul ka yahay kan loo codeeyeyna waa mas-uul oo waxa uu mas-uul ka yahay wixii loogu codeeyey balse mushkiladda jirta ayaa waxay tahay ka codaynayaana ma fahamsana waxa uu u codaynayo kan loo codeeyeyna ma fahamsana waxa uu doonayo in loogu codeeyo iyo miisaanka ay leedahay mas-uuliyadda uu qaadaya taasina waata keentay in muddo 15 sannadood ah ay fadhiyaan baarlamaanka hadda jira waxaan filayaa hadda inay tahay fursad dahabiya oo 15 sano kadib hortaalla dhammaan shacabka somalilan muwaadin maanta ayay ku hortaallaa fursadda ka faa'iidayso dooro dad aad bari hakaha ku tiraahdo kuwaasoo iyaguna leh aqoontii iyo aragtidii ay kugu hogaamin lahaayeen isbeddelku wuxuu imanayaa markaad adigu isbeddesho laakiin ma jiro madaxweyne isbeddel samayn kara haddii aanad adiguba isbeddelin oo aysan isbeddelin aragtida aad wax ku dooranayso iyo xataa waxa aad doonaysaa waa inay kuu caddaadaan taasoo berri kugu dhiirigelin doonta mas-uulkaaga inaad la xisaabtanto weydiiso wixii uu kuu ballanqaaday haddii uu fuliyey ballanqaadkii ugu mahadnaq haddii uusan fulinna ha kuu ahaado qof mas-uuliyad darro muujiyey haddaba daawadayaal caawa barnaamijkeenan intaas ayaan kusoo afmeeri doonaa dhammaanteenna waxay mas-uuliyad naga saaran tahay qarankeenna allahayna waafajiyo wanaaga allana haynoo dooro isaga ayaa wax dooree mas-uuliyiin shaqada loo igmaday u gutaa sida ay u ballanqaadeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu